dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ka furmay bandhigga carwada caalamiga ah oo uu soo qabanqaabiyay guriga ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Qabanqaabadani oo ku soo beegmaysa 110 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay rugta ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa carwadaasi ay ka furantay sabadka guriga ummadda ee ku yaala caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana ka soo qayb galay furitaankii carwadaasi ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cabdilqaadir Kaamil Maxamed, qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti. sidoo kale carwadani sanadkan lagu qabtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland, wasiiru dawlaha wasaaradda beeraha ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdilqaadir iyo wasiiru dawlaha wasaaradda ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. geesta kale waxa iyaguna si ballaaran sanadkani uga soo qayb galay carwadani lagu qabtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ganacsato badan oo ka socota dalka Jamhuuriyadda Somaliland, waxayna iyagu carwadaasi ganacsatada reer Somaliland ku soo bandhigeen waxyaalaha kala duwan ee ka soo baxa dalka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana telefishinka qaranka Somaliland wareysi gaar ah siiyay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Yuusuf Muuse Dawaale, isaga oo aad ugu dheeraaday in aan marnaba laga maarsamaynin ganacsatada reer Somaliland oo ay iyagu yihiin kuwii aasaasay carwadani maanta lagu qabtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Yuusuf oo si aad iyo aad u heersanaa noo soo dhaweeyay. haddii aan nahay bahdii ganacsiga waxaanu kaga soo qayb galnay ilaa 12 shirkadood oo soo bandhigay hawlahoodii oo kuwa nimanka aynu joognaa ka mid yihiin. waxaanu kaga soo qayb galnay ilaa 23 xubnood oo ah ganacsatadii guud rag iyo dumarba. waxaanu dalka Jabuuti kaga qayb galnay aniga wasiir dawlaha ganacsiga, gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga, xogeyaha guud iyo wufuud kale oo kala duwan oo Somaliland ka socday. si wanaagsan baa runtiina lagu soo dhaweeyay munaasabadii iyo guud ahaan dalka Jabuuti boqol guuradii ka soo wareegtay aasaaskii rugta ganacsiga Jabuuti oo ku soo beegantay carwada caalamiga ee maanta dalka Jabuuti lagu soo bandhigay. maanta carwadan caalamiga ee dalka Jabuuti boqol guuradii ka soo wareegtay aasaaskii rugtooda ganacsiga, wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland, rugtii ganacsiga, safiirkii Jabuuti u joogay Somaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaan maanta kaga soo qayb galnay. kuma koobna wax soo saarkaygu ila taango oo kaliya, waxaa jira barnaamijyo noo soo socdo sida daasadaha sharaabka ku jira oo aanu imika dib casriyeyn ku samaynayno. hadeertana ay qolo shirkadda ka mid ah safar ugu baxayaan Turkiga. ayaga dheer bay ku jirtaa inaanu dunida oo dhan gaadhno, laakiin imika African target garaynayna wadamada Ethiopia iyo Djibouti ay ugu horeeyaan. ayaa hore uma dhicin carwadan waa carwadii ugu caalimsanayd ee aanu ka soo qayb galnay. waxaana sanadkani si ballaaran uga soo qayb galay ganacsatada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Maxamed Jaamac Waale, telefishinka qaranka Somaliland, Jabuuti.